بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد maanta waxaan isugu nimi kulan sidii madaxweynuhu noogu baaqay habeenkii 26 Juun saddexda xisbi qaran kulmiye wadani iyo ucid iyada madaxweynuhu sheergaray nala joogay madaxweyne ku xigeenku kulankaasi wuxuu ahaa isxog waraysi confidence building muddo la kala maqnaa welina kulamadii way noo socdaan si wanaagsan baanuna xuslo soo dhaweynay intaasum ban media maanta la wadaagaynaa kulamadina weli waa noo socdaan iyagoo intaa ka sii kooban haddii aan laydmo waxaanu ka wada hadalnay doorashadana ka wada hadalnay iyo sidii looga wada qayb geli lahaa waanu isxog waraysannay waanu doodnay si wanaagsan oo degan oo nadiifa oo albaxnimo ku jirto welina way noo socdaan waxyaabaha ilaa hadda isla soo dhawaateen doorashooyinku aad isku khilaafsaneedeen oo khilaaf badan baa idinka dhexeeyey waxa rasmiga dadka bulshada u sheegi kartaan eed ku heshiiseen inaad la wadaagtaan baan doonayna waxaanu u sheegaynaa bulshada in aanu heshiis ku nahay doorashada qabsoomideeda 13 bisha December aanuna ku jirno weli wadadii loo mari lahaa doodeeda iyo qaabkii doorashada ay u dhici lahayd wada hadaladeedii oo positive oo wanaagsan